Press share. Yeah. Share. Yeah. Okay. Press share. Yeah. Oh, thank you. Okay. Well, my son, Abdi, I should add on my son team. First slide, please, Abdi. Okay. Okay, first slide. marka waa baasitiin marka waxa weeye autism waxay noqotay cudurka kaliya hadda adduunka u soo jeestay oo aad u fara badan wax badan baa laga bartay laakiin wax badan oo kala dhiman marka waxaan sameeynaa horta waxaan bilaabayaa inaan iraahdo autism ma aha cudur oo berri ama saa dambe lagu dhammayn karo marka waxaa loo baahan yahay autism inay hooyooyinka iyo ahalka inay sabar yeeshaan maxaa yeele autismadu markay bilaabato ma aha wax berri isaadan lagu daawan karo waa process soconayo ilaahay amarkiisa ilmaha qaba autism ee cumrigoodu waa dheeryahay marka waxaan rabaa inaan kala tashado hooyooyinka soomaaliga anigu aan aad u arkay cudurkan waxaan ka shaqeynaya muddo 20 sano ah waxaan kasoo dhismay center weyn oo Middle East oo anigu aan ka qayb galay cilmi badan aan ku bartay warqado badan aan ka qoray autism adduunka magacayga uu listed yahay as a specialist in this area marka waxaan doonayaa marka hore inaan la wadaago waxay autism tahay taariikhdeeda calaamadaha lagu garto dabadeed waxaan u dhaqaaqayaa dariiqa loo maro dhulka annaga joogo ingiriiska oo aad u wanaagsan aadna ugu horeeyo qofbaan doonaya mudnaad gasho qofta aadna ugu horeeyo cilmiga autism maraykanka kaliya ka sarreeya marka waxaan doonayaa in dariiqa loo maro waa 3-4 steps intaan diagnoska la helin waxaan ogahay in hooyooyinka in ay walwal ka hayo inay hore ka ogaadaan canuga wuxuu qabo runtu waxay tahay 4 sano ka hor diagnos lama sii karo sababta waxay tahay 4 sano ka hor waxaa jiro cudurro kale u eg autism ay ka mid tahay Willy Braden Ashkelon iyo Fragile X oo qaabka lagu baaro haddii autism uu kala saari karin marka sababta 4 sano loo sugayo 5 sano waxa weeye qaabka lagu baaro baan kala saari karin laakiin 4 sano markii la gaaro qaabka autism waa la kala saari karaa horta taa waa inay ogaadaan waxaan kaloo doonayaa marka dambe inaan wada aan baarno sida looga hortegi karo marka calaamada ugu horeysa autism aba loo yaqaan spectrum macaanigeedu waxaa weeye haddaan fasirayaa horta saddexdan calaama lagu yaqaanaa inay wiilka af soomaali kaliya waa soo maha dadkeena maqlayo so marka waxaa ku qoran waa persistent deficit in social interaction inuuna canuga hooye eye to eye oona siinin inuuna eegeyn inuu la qoslayn inuu dhaha tusayn waxba tusayn emotionally حتى الناس هم نوغان بيران سيدا عادي اه علامات كل ويقع وحاول restricted behavior routine اللي ايو اي او اكل اللقي بسنين مركب يبدأ الروتين كنا عرونا وحناقي iyo luqadii oo dhisnay marka saddexda calaamad lagu yaqaano gibigooda ma qabaan waxa jira kuwa qaba communication problem laakiin aan qabin stereotype waxa jira kuwa social interaction aad u qabo laakiin luqadan haysto marka sababta loo kala spectrum waxa weeye inta gibigooda la isku xiri lahaa ilaa isma lahayn waxa weeye from severe medium to moderate يعني autism جمعان autism أحد iyo autism culus marka spectrum saas bay ka timi marka macaani maxaa loola jeedaa waxaa loola jeedaa in canug autism qaba canuga kale inuu ku gudbisan yahay real waxaa la moodaya in la isku wada joogo laakiin hadda waxaa caddaatay in autism kan qaba iyo kan qaba inay kala gudbisan yihiin marka saas daraaddeed ayaa loo keenay waxa la yidhaha ABN applied behavior approach or individual
care la siinayo for your needs maxaa your needs is different than the other child's needs marka way kala horeeyaan marka taa inaan u fasiran rabo next slide please Yeah. next slide Kusoo. horta autism hadda maraykanku waxay leeyihiin 1 in 86 68 ilma dhasho hal canug baa ku jiro is too much waxayna ku leeyihiin lama diagnose gareyn before the school age waa run anaa fasiro 4 to 5 years however most of the parents waxay arkayaan canuga markuu jiro hal sano ay bar inuuna caadi ahayn waxaan gaduud uga dhigay waxaa weeye 18 years marka waxaa la balaa wax yaraa intervention marka hore waxaa la sugi jiray muxuu qabaaya muxuuna qabay hadda waxaa la ogaaday haba suginba dhibka hadda haysto intervention lagu sameeyo haddii interventionka la sameeyo before 3 years of age outcome-ka fiican is that very clear marka ujeedada maxay tahay hooyooyinka intay wareegayaan leeyihin aan helo autism ama 4 sano sugaya damage-kan ayaa sii kordhaya cudurka marka gadaal looma celin karayo okay next slide please Yeah. next slide Yeah. No, you're good. Kusoo. thank you marka I see a bit of historical development this is very important dadka hashmo kale uga shaqeeyo autism horta afarta hore oo la qoray waxaa waa childhood autism Rett syndrome Asperger iyo childhood disabled disorder saddexdan hore waa saddex tartar oo magaalada Vienna Austria kuwa la bartay waqtigii xarbiga labaad intuu bilaaban ka hor autismada childhood autism koobaad waxaa qoraynaya Leo Carlo oo ay tartar Yahuudiya oo Vienna ka shaqeynayay dibadeedna intuuna Hitler markuu yimid isaga tegay oo aaday Maraykanka markaa ka shaqeeyay John Hopkins University Clinic oo ku taala magaalada Maryland oo dhoweeyay halkaas wuxuu ku arkay 9 wiilasha u badan 9 wiil oo markaa dibadda ka aragto normal ah haddana aan luqad lahayn aan ku eegayn aan ooyin ama qoslayn aan ka qaybgalayn xataa aan kala garanayn hooyooyinka kale marka taa uu la yaabay marka uu u baxday routiinka markuu arkay ayuu u bixiyay autism waxaa laga keenay bluler dadka cudurka dhimirka weyn qabo schizophrenic group ku jiro ayaga meel isku xiran marka autism waa Latin for stay alone waa aloof ingiriiskeeda stay aloofness marka maadaama la aqoon wuxuu wallahi kor waa autism u baxshay childhood waxaa loola jeedaa before 3 years of age هذا بوك أخرى وحنا first child psychiatrist in the world أيوة نقول لو كان at the same time 1942 Hans Retz سنة تختارها أيارك جبت بدل وأك على مدى أو كان الفقر كتشاند الأوتس لكن جبت بأهله وحاصير راعي الناس إن عذرك لبض طبعا داية سبب يوضها يلغى إن سكوات سكن إدرالي سليه مركز رات سيندروم قرتها كاسبو كحري وكجرا كلاسيفيكيشن مركز 1992 أي قبل لي بنيسة وكشقي سبيلو يونيفرسيتي تكساس USA أي هش جين ليرا X-linked meta-infile protein mutation جين بهشي ورات كسابسن مركا جين كاس أو كان سيمتومكا أو راتسكا مركا راتس وحا لغا ساري أوتيزم وحا لغو دري وحا لها neurodegenerative disease أو فرادة أي لغو ريجي gabadhaas baniiska weli nool cumrigeeda waa yaryahay waxaa la yidhaha huda xubbi meel walba ka shaqaysaa waxaa la siiyey shahaado weyn Rett syndrome waa laga saaray 1950s Asperger oo ahay takhtar German ah oo gabadha isagoo dhalay ayuu ku arkay pediatrician buu ahay saddexdooda waa pediatrician وتخطر كإلباها
wuxuu ku arkay calaamad u eg autism laakiin kuwa kale waxay u guddisan yihiin luqad bay leeyihiin stereotype way jiraa social interactionkooda waa limited laakiin they have the language wuxuu kaloo ku arkay in maskaxdaasi u shaqaynayso inay ku jirtaan dhinac oo very intelligent ah oo hal meel ku wanaagsan especially art music iyo mathematical numericals memorygooda dabadeed maazaala asperger oo noqday askari nazi ah halkaasaa lagu xiray cilmigiisa lama dhaqaajin maxaa wuxuu ka qayb galay wuxuu noqday hitler maanta supporter halkaasaa lagu xiray adduunka xarbiga labaad baa ka dhacay waxaan o dhan gadaal baa loo dhigay wax ka culus baa lagu wareegay 1960 naadiga Lorna Wing doctor Lorna Wing iyo ninkeeda John Wing oo ingiriis ah ee London degan wayga oo dinta yidkaasto ayaa gabar dhalay oo la yiraahdo oo qabtay autism hooyada oo psychiatrist iyo ninkeeda ayaa markaa lagu tuumay sababta ilmahan ay u qabaan autism ay tahay inay hooyo siin attention iyo xanaano halkii bay ka xanaagtay maraykan baa la tegey autism waa la baaray waxaa arkay ilmo badan iyo hooyadood oo cil oo ku dhaco day fiicnada day xumeed marka saas daraaddeed ay halkan uga bilowday maaragtay charity of autism oo hadda lala baxay national institute of autism center weyn adduunka ugu weyn bay ka furtay meel la yidhaha bromley hadhow waan ka hadli doonaa marka waxay noqotay one of the leading experts in autism next slide please xoogaa taariikhana aan siiyaan doonay next slide waa haystaa thank you marka hadalkaan maqlaysaan faarkiina ku dhigan tahay autism waxaad ka helaysaa classification maxaa loola jeedaa in adduunka dhan isla gartaan marka tan hore waa autistic disorder waa gibigeeda asperger oo keligiisa iyo bds mid u eg atypica carabta ilaa shabxta waxaa kaloo additional u ah kuwa communication deficit iyo kuwa habo restricted behavior marka laysku daro ayaa ilmaha saa loo kala qaybay marka la siinayo treatment amba daawo amba education next yeah you got it why is that right maxaa keena autism waa ila socda xoogaa waa laysku haystaa sida hadda jirto waxaa weeye single factor oo autism ma jiro laakiin multiple factor oo isu yimaad gene ah waa jiraan laakiin waxaa la la'yahay numberkooda iyo sequencing waa la la'yahay marka hore waxaa lagu tuhmay welina jiro daa ila socotaan dhinacaan wata waxa soo allergy in la soo qaaday waad ogaadeen wuxuu ka bilowday dadka dajka ah netherland oo tiri allergy waa keenay cuntada ayaa keenay waxaa kaloo aad loogu wareegay xusuusan inta talaalka mmr ayaa triple weliba dad aaminsan marka waxaa xoogaa inaan ku hakado waxaa la kaarisaanka ka siday waxaa jira dadka wakefield ah oo ka shaqeynaya london markaas wuxuu ahay organ transplant specialist this is waqtiga waa 1996 islaan ingiriisoo wiil qabo wiil autism qabo baa u tagtay waxay tiri doctor wiilkan ii baar wiilka waa calooshay baarka ka baaray caloosha wuxuu ka helay xoogaa enzymkooda yar markaasuu islaamka ku yidhi ma la talaalo waxay tiri waa la talaalay maxaa lagu talaalay tripleka maa la siiyey tripleka mmi waa measles mumps and rubella oo ilmaha qaataa saddex marka hore hal baa lagu diiday hadda saddexda isla socota baa lagu dhiftaa ma saddexda isla socota baa lagu dhiftaa haabati haddaba waxaa keenay talaalka halkaas baa lala booday baarlamaanka ingiriiska ay tagtay dowladda Tony Blair waxay ku sigatay inay dhacdo weelasoo dhan iyo ingiriiska dhan way ka istaageen inay ilmahooda talaalaan welina dad baa jiro oo noocaas meel kasta aad ku arkayso soomaalidana qabto carabtana qabto maraykankana qabo weli ingiriiskana qabo laakiin waxaa la ogaaday in takhtarka yiri saa markuu warqadaa qoray lancet journalka yidhaa
ayaa adduunka dhan ratification of waxeeya repetition in researchka la sameeyo inuu isaga sax yahay 10,000 oo caruura oo qaata MMI baa la baaray wax autism qaba lagama helin odayga baa lagu soo noqday marka la sii baaraa waxaa la ogaaday inuu asaga dan u lahay oo insurance uu rabo inuu maaragtay ka qaato dadka wax tallaabo compensation ninka odagahay maxkamad la saaray shahaadada waa laga qaaday dhulkana waa ka tegey ninka marihii kuu degan yahay dhakhtarnimana kuma shaqeeyo marka talaal inuu keeno talaalka maxay ka keeneen mercuryga maarata talaalka preservative mercuryga oo talaalka lagu maarata lagu inta uga dhicin lagu ilaaliyo preservation ayaa keenay marka taa halkaada lagu xiray waxaa jiro immune deficiency oo iyadana la baaray iyadana laga waayay marka autism mid cayilan iyo mid jircan iyo mid xoog leh iyo mid faqri iyo mid lacag leh iyo mid wax kasta ku jira marka meesha rajada laga qaba kaliya waxaa waa genetics marka geneticaa socdo si xoog lagu socdaa jiinka iyo genetic cusub oo lasoo saaray oo la yidhaha macro RNA hadhowan kaalmeeyo ayaa rajo weyn laga qabaa in la soo helo marka dhinacaas horta saas baan doonayaa marka sababta lasoo saaray ma jirto marka in la sugo cilmiga lala socdo ay ku habboon tahay waxaan la hadloohaa hooyooyin iyo ahalka next Yeah, you got it. okay Okay. right markaa halkaa fiirso dadka la shaqeeya autism ama baaraya ama manage garaynaya waxaa way multifactorial bal eeg inta professional oo anigu autism qaba u shaqeynayso waxay ka wataa education waxbarashada special education the social workers involved behavioral analysis gives them the file of behavior there's occupational work who helps in their life there's a nurse who looks you need the physician to start especially with dietitian and then the psychiatrist will get involved with the treatment and diagnosis marka intaa la isku dayo dadka arkaysa waa arkaysa vocational officer waa ka siiyo the summer holidays center xakaadayda dhulka intaas leh marka haddii intaa education dadka yaqaano autism adduunka dhan ku yaryihiin waa la marka haddaad isku darto hal iyo laba la helay oo saad isugu beerto halka canadba wuxuu qaadanayaa $500,000 per year $500,000 per year ayaa ku baxayso hal canad oo qaba autism nasiib waxaan ku leenahay anaga waxaa joognaa NHS haddii adigaad gara kartid wax loo raadsado aad waxaa dhan waxay ku imaanaya free hadhowna ka hadlaynaa sababta uga hadlayna waxaa waaye soomaalida ka hartay oo gara weyday sida loo maro next Yeah. right bidaba epidemiology markaan arday ahay 1970 Edinburgh Scotland waxaa la yidhi wuxuu ku dhacaa hal qof 10,000 kunba the year 2000 waxaa la yidhi waa 68 10,000 kunba 2011 waxaa la yidhi 160 waxaa la yidhi 186 consensuska laakiin laisku raacay waxa waaye hal qof 300 oo canug oo dhasho wiilasha u badan marka hore 91 bay ahaayeen sheerka laakiin hadda waa 73 marka gabdhaha way soo badanayaan su-aasha la isweydiiyey waxaa weeye ma cudurka baa soo badanaya base waa la gara waayo wou jira waa la gara waayo labadaba waa correct cudurkana wou jiray ee qalabka lagu baaro baan jiray qalabka lagu baaro marka la helay autismada kor bay u kacdeen laakiin wuu jiray inay soo badanaysana maxayna waxaa isbedelay cuntadayna genomics baa soo galay immigration baa soo galay soomaalida joogtay muqdisho iyo australia iyo canada iyo jow iyo adduunka la ee jooga la geeyey ayagoo stress qabo kala isguursaday kala tegay marka all factors were valid next Yeah. right I want you to concentrate with me dariiqihii loo maraa inuu tusaya dadkii autism waa lifetime oo tan hore u sheegay marka hore waxaa jiro laba level was 3 stages
لكن stage 1 is stage 2 okay stage 1 waxa waa surveillance stage 2 dadka runtaa baa u tagaysaa oo autism shaqada ku hayo marka next slide please yeah now hooyo ayaa ah communication uu horeeyo hooyo wax ka badiyo ilmaha autism la jiro ayadaa la joogto hooyo kaaliyana aabana waa lamid ayadaa garan karta xanuga inuu ilmihii kale hididisan yahay oo dabiici ahayd marka afartan calaama hadday ka hesho wax la sugayo ma jiraan waana ku dhaqaan afta calaama maxay tahay canug laga waayo badnay ba ama gacan ku fiiro way wuxuu doonayo by 12 months waa calaamo amba laga waayey hal xaraf hal sano iyo 6 bilood amba laga waayey 2 xaraf oo isla socdo kan c amba ka farta ku tahay by 24 months iyo say u badan tahay isagoo bilaaba hadalkii oo wanaagsanay haddana ka noqdo waa calaamada ugu culus markii la eegayo autism luqada waa bilaabay marka sano ka bacdi uu ka noqday wixii dhimay calaamada marka aragtay waa immediate evaluation marka xagee tegaysa next please marka iridda hore waa gp-ga hala dagaalamaya shaqo kuma leh autism laakiin ma celi karo wuxuu sameynayaa waxa la yidhaha small routine intuu referalka qorayo in loo adkaysto marka daktarka gp-ga shaqo kuma leh autism waa specialized situation laakiin iridda buu ku furayaa yaa la dagaalamaya waxa hore uu ku weydiinayo dibadeed buu referal sameynaya yoo u sameynayaa daktarka ilmaha marmar daktarka ilmaha wuxuu la joogaa communityga gp-ga marmarna waxay joogaan cusbitaal daktarka ilmaha waxaa la yidhaha developmental pediatrician weli autism shaqa kuma si fiican u dhegeysa okay markay mushkiladaa waxay tahay gp-ga markuu u diro pediatrician it doesn't take too long wuxuu joogaa amba gp-gu la joogaa amba cusbitaalka u dhow joogaa marka taa waxay qaadanaysaa few weeks oo appointment daktarka muxuu sameynayaa marka developmental waxaa waye tacbiirka madaxay culeyskaaga iyo madaxaaga iyo culeyska iyo saabkaa iyo ayuu baarayaa dabadeed wuxuu sameynaya waxa la yidhaha audiological evaluation dhegti inay wax maqlayaan sababtoo ah between 3 to 15% children with autism si fiican wax u maqlaan okay wuxuu qaadayaa blood lead macdinga ku jiro dhiigga waa inayna ka sarreyn 10 milliliter per deciliter ilmaha qabo waxay ka foqsadaan rinjiga iyo tubooyinka iyo macdinka afka gashadaan hadday bataan cunuga wuxuu ka dhigayaa dam waxa u aad autism dhaqaaqeeda shaqa lahayd 15% ilmaha autism qaba ilmaha si fiican uma arkaan waxaa lahaa mirroring image waxaa loo gartaa ilmaha aad ku shade inaad maraaya tusto inuu iskarto inuu maraayada iskarto marka laba kale condition kanaa jira medicine ay ilmaha markay maraayada isu fiiriyaan ay isgara kale inay agan yihiin tan hore waa autism tan lamaadna waa dementia alzheimer waa dhaqaaqday isma arkaan adoo alzheimer haddaa tusto maraayada tiraa kan waa aniga ku dhimayo iyo up to 15 to 20% maxay qabaan ADHD farada maqashada ummadeen ilmaha on top of autism okay ADHD waxaa ilmaha dhaqaaqooda badan attention aan lahayn xasal darada badan oo dhib weyn keenayso marka labadaas waa la isku daaweeya waa lahayn karaa hadda waan ka hadlaya wuxuu kaloo sameynayaa waxa la yidhaha mchat hooyaa lagu sameynaya xaniguma ah hooya 20 question baa la siinaya mchat waxaa waaye checklist for autism in toddlers waxay 3 sano ka toddler baa laga marka hooyaa la weydiinaya su'aalahaas 20 haddii laga helo more than 2 waxaa waa suspicion in autism
okay marka mchat social communication like mchat ka ayaa sax waliba kan modify mchat 20 questions hooyaa la weydiinaya way buuxinaysaa markay saacidaysaa si looga socdo next slide tajruba weli joognaa okay next Yeah. tan horaa u sheegay next please next hooyaa horaa u sheegay next right markuu intaas sameeyo diagnoska laguma ordi karo autism sababtu waxay tahay weli lama baarin waxaa ku dirayaa guriga lagu celinaya for 3 months waxaa la watchful situation yani isha ku hayda leeyahay hooyo hadday hooyada ay musaacado u baahan tahay waxaa jira early bird waxyaalaha ingiriis training baa hooyada siinaya si ula macaamul lahayd wiilka iyo gabadha qaba autism haddana taa ay gara weydo dhib haysto guriga loogu tagay waxaa la early bird class training at home taa haddaadan ogeynana waa ina hadda ogaato xaq baa u leedahay kabacdi waxaa sameeya re-evaluation after 3 months next please next please next Yeah. right kan waa level 2 waad arkaysaa kor kan waye meesha runta ahayd waa meesha runta ahayd stage 3 ya oo autism shaqo ku leh oo specialized oo ku siinaysa diagnosis markaad moodana irdahoo dhan lagu furayo for the rest of your life of the child's life waxaa sameynaya history neurodevelopmental isaga dhan baa la kala furfuraya canuga genetic screen baa la sameynaya especially tan ugu dambaysa oo leedaha macro array DNA taas hadda bilaabatay waa qaal laakiin ilaahay amarkiisa lacag la-aan inta laakiin haddaa private ku samaynaysa waxa weeye up to 20,000 pounds was specific up to specific 90% ay kala saaraysaa marka autism soo harayso inta kale way kala saaraysaa waxaa kale samaynaysaa haddii la helo DNA ahalka ayaa la aadayaa ay gadaal u riixaysaa meesha ka timid yaa wada jiinka marka that is optional but it's available waxaa sameeyaa neuropsychological waxaa sameeyaa IQ performance verbal IQ caqligiisa intuu gaarayo electrophysiology EEG iyo imaging CT scan MRI SPECT maxaa loola jeedaa waxaa way to rule out maaha to rule in inaad caddaynayso inuu autism qabo waxaa way inuu cudurkaa la socon maskaxda gudaheeda ama korka gudihiisa ayaa laga saaraya baa loola jeedaa okay now all this markaad soo dhaafto oo waxba la waayo oo laga waayo maskaxda waxba laga waayo korontada laga waayo marka IQ-giisa maxduud yahay neurology aynan lahayn ay la socon nervihiisa next please next slide Yeah. right now here we are now these are the people who give you the diagnosis right qalabka lagu baarayo this what you look at one of the best is autism diagnostic observation schedule oo yaqaan ADOS waxaa weeye canuga laga sawiray xataa hadaanan joogin magaalada hadda waxaa laga soo diraa Kuwait videoha hooyo soo samaysay specialistka loo soo diraya video baa la eegayaa markaas u sameynayaa APN hadda Maraykan baa u dirsan kartaa waxaa isku diray telemedicine ADOS observational for 1 hour natural canuga interaction la sameynaya guriga gudihiis iyadan hooyo faraha gelin halkaasaa la baarayaa marka behavior waxaa jira autistic diagnostic intermediate labadan kor Maraykanka aad ugu horeeya tan waa hooyo su'aalo badan baa la weydiinayaa oo muddo dheer qaadanayo marka waxaa lagu darayaa xisaabta ADOS dabadeed baa la siinayaa diagnosis autism
يحوجيس من specifically in أي كلمة ممكن جريسكو حسب الواحد إلى ديسكو كان هو ديسكو والdiagnostic instrument for social communication وبروملي وسنتركا National Autistic Society إسلامتا إنيشيا يعني نورمالي أدبلوني وحوالي 2 weeks وأهلك عنو بالهايسن 2 weeks from A to Z investigation A to Z cost $20,000 for a private institution or charity private institution they charge you okay now in the Middle East يضب كان كلا وحاوبناي cars childhood autism rating cars كاس وكان بستعمال جدا انت ألس إن صبحي كويت تاسو حوالي لحظة question أتوقعين سهوية مركب وحي صدم كيرنا محمقبه وحي صدم كبدا من القضاء next slide please I just want to let you know next please Yeah. right marka waxaan u dhaqaaqayaa waxaa la yidhaahdo challenging behavior maxaa laga qaban karaa hooyooyinka dhibkooda bahaysa hadda waxaan rabay inaan idhaahdo haddaa intaas soo marto stage 3 waxaa ku furmaya irdaha waxaa raba loo samayn kara wiilkaadii ama gabadhaada up to the age 18 and then beyond that waxay naqaanaa adult autism oo loo sii furaayo maaragtay chance for job training iyo xataa colleges so markaa wiilkaa ama gabadhaa independent u noqdo and you can earn money oo shaqo loo raadiyo waa haddaa sugi karto aadan la dagaalamin aadan ka boodin dariiqyaha aan soo sheegay for example dhibka weyn wuxuu yahay between the pediatrician to the autism assessment ayaa qaadana 3-4 months ilaa q baa lagu jiraa marka taasay soomaalida ka booddaa kuwa badana jibiga la boodaa ilaa jibiga moodaa inuu tukar wanaagsan oo garanayo marka haddaas intaas sugi karto waxaa ku furmaya for the rest of your life up to the age 18 and beyond oo la hagaajiyo hadna wax lagu baro adiga iyo wiilkaaga gabadha autism challenging behavior waa kan ugu dhib badan ilmaha autism intaan dhan oo meesha ku qoran waa laga helaa inay isqaniino inuu wax ka burburiyo xanuufta tufo madaxa garaaco isxog xogo waxaa jira ajikon inuu dharka iska tuuro inuu meesha ka cararo inuu istaabto sexual dhinacaas inuu xaarkiisa wixiisa ka bado sexual curiosity marka adolescent yihiin marka behaviorkan oo dhan purpose waa la baaray waxa weeye waa way of communication ilmaha markay wax samaynayaan waa non verbal waa afka aan qabin weli luqada aan lahayn waxa weeye ama xanuun bahayo ama comfort buu iska dhigaya aba attention u rabo marka way of communication marka waxaa habboon intayna xooggan un ay bilaabanba in laga hortago early intervention ka hadlayay taas baa ka mid next please challenging behavior waa negative family effect stressful keenaya social isolation hooya wiilka dibadda gey karin because she's embarrassed about ceeb baa jirto iyo Soomaaliya aad iyo aad anxiety depression ahalka ku dhacaya iyo walaalihiis iyo walaashiis ilmaha kale oo waqtiga maaragtay ka dhumay oo canuga noqday center of attention for the rest of their life iyo physical damage inay ayaga jajabiyaan ama isku buriyaan next waa in laga hortago marka aan soo aruuriyo challenging behavior ugu dhib badan next slide please right this is for most challenging behavior in autism mid waa hurdalaad hadii canuga hurdalaanta ku dhacdo nobody can sleep in the house kan kale ee hooyooyinka aad maalin kasta telefoon ii soo diraa waa food sensitivity cuntadii baanu cunayn ama cuntadii baa ku baarto saxrada uuna bedeli karin calooshaa bararan ama cuntada diiday iyo hooyo cunto keenayso oo cidla tashay
caanaha ka daa kan ku dar ka cusub dar shokolaadka sii kan sii dajaaj sii hilibka sii oo iyadoo qofna qola ka tashay tan kale waxaa weeye meltdown waxaa weeye ilmaha markii dibadda aadaan ilaa lama dayaarin oo herka tuuro ooyin iyo weliba supermarketka markaad tahay ama dariiqa aad socoto mar uu isku dhufta cabaad iyo qaylo oo adduunka dhan ku fiirsanayo sababtan waxay ahayd marka hore aadan ka fikirin in environmentka canuga ama gabadha autism dayaa u tahay sida loo baaro iyo sida loola hagaasan baa idin sheegaa iyo aggression burbur personal burbur iyo burbur of property oo loo adkaysan karo marka bal aan next slide please horta sleep aan baarno sleep next slide sleep without medication say loo saacidaa here we go how to help your child to sleep without medication listen to me marka waxaa rabaa googa oo hooyo aab sleep routine inuu leeyahay for child and for his siblings haddoona driving home lahayn sleep routine iyo sleep schedule waa inta saacada ilmaha 6 9 o'clock 10 hours hadbas leedahay schedulekiisa markaad barato iyo the routine comfortable environment waxaa loo jeedaa ilmaha hurdada hadhow baan ka hadli doonaa laakiin environment waxa waaye qoladiisa isaga anigu autism qaba lama wadaagi karo walaalihiisa walaashiisa inay meel isla seexdaan I know if you don't have facility still can be created حتى sida hor ilmaha autism qaba say u arkaan say u hurdaan say u fadhiistaan iyo waxay maqlayaan ka gedisan walaalihiisa walaashiisa marka stresska isaga hayo oo maa kale aan ahayn islama socon karayo marka comfortable aan soo gaado waxaa weeye waxay jecel yihiin culays saaran temperature of 15 centigrade in the room colorka roomka waa in one color only stressful color waxaa ahayd white color and the yellow color is no marka green color waa inay noqoto meesha lagula abuuro sensory issue hadhow aan ka hadlayno sensory waxaa waxu asaa ka hel avoid sleep disruptors maxay tahay computer iyo ku qaadan computer a bed waxaa waaye excitation ku dhacay maalinta taasna waxay ku jirtaa sensory rules hadhow aan ka hadlayno waxaa kaloo jir wax la sleep associate maxay tahay waa laba amba hooyo amba cooker oo isaga la seexdo oo comfortable ah toy laakiin caada hooya u fiican inay geyso sariirta sida caadiga u ahaa jiray la hadasho la daldanto markuu hurdada kasoo dhaqaaqo si tartiib markay naqato night awakening habeenka bay kacaan reason waa other waa hooyo inay cunto siin ama caano siin inay kasoo gaaro inay ku celisaa maxay isliim ilmaha inkastay soo kaceen sleep alfa ridmigooda weli waa hurdaya marka waa meesha ku celisaa xoogaa la joogtaa gacanta saarta oo lagu riixaya culayska gacanta waxaana ayaga waxay jecel yihiin wax u socsaa early morning awakening waxaa la sameeyaa saacado especially hadday jiraan 8-12 years saacad baa ugu dhigay meesha oo la qoraya hooyo iyo aabe iyo ruumkooda magacooda lagu qoraya this is mother's room dad's room this is brother's room asagana qodobdiisa waa in magaciisa lagu dhigo this is Ahmed room hadday kuu soo gasho haddayna kuu soo gelin it can be marka saas baa lagu saacidi karaa sleep routine ka daawo lama siiyo ilmaha autism for sleep purposes ilaa muddo ay da' ka gaaraan next please next yeah nutrition halkan baan lasku dhamaanayaa halkan dhib baa winbox waxaa gluten iyo casein free diet autism kaliya maaha حتى dadka caadiga ah gluten iyo casein individual they react okay gluten qamaxa ku jira galayda waxa laga sameeyaa qamaxa ku jira waa protein galay protein casein waxa ku jira dairy kunta iyo farmaajo iyo marka dad waxaa jira ilmaha autism iyo dadka caadiga inay lahayn enzymka caloosha oo burburiyo proteinka trypsin
وعلى شيء نسميه إن الله marka kuwa waxa ku dhacaya marka yeast yani ana garoor oo la ruxay ay caloosha noqonay yeast created gas waa marka soo maraya dhunta afka dhexdiisa ka soo baxaya marka soo arkaya noqonaya marka dib sii socdo oo noqonaya candidiasis oo soo galaya bacteria kale oo candida ay u badan tahay Somali badan baa qaatay vitamins I don't know why يعني الفيتامين يحتاج سين فيتامين وهرت إلى بعض فيتامين كاس إنه ناقص يحيى على فيتامين كتبون وده فيتامين أفكار كسيس وحب برنا كان بناكل لكن بدل كله so that's not quite right لكن فيتامين كان وباهنين وليك اللي قبضاري سكسو قبسان سكسو بكم yeast free diet ما وكان الحين كله فيتامين A اوكي لا يوجد اوكي ده B6 والبيريدوكسين نيوروباثي ده خبر ديابيت نيوروباثي ده اسمها نيوروباثي او فيتامين B9 وفوليك اسيد هو الاوركل على السلاسل وفاعل ما بشكل عام القرآن فيتامين B بريان على واشي وكالسيفيرول حقه حاليا ذاتك لفعل يوريكات وقلوعة لكن فيتامين دي هذا حالة قرتي إلى تاي transporter for other vitamins فيتامين دي علاقة بالفيتامين الكري سواء روبسا مركز الغرة مركز كوريسا لك كالسيفرون كان not only in وفاء وضع business وحنا خدت bus transporter like UPS فيتامين كلا حلو برتوه هذا ماشي تكتبه off the counter فيتامين دي بجيب وقته كوسو كوريان فيتامين دي 1 2 3 alright لكن ده كانوا ويركا بدنا أفريقيا كين الوضع but I just want to let you know next slide please أصبحت nutrition okay ها nail down أنا قال أكو قرحي ما أطلع أكو عادين أدوك أكو آلين مركب nail down حسنات marka waxaa jira meel management oo ah haday guriga noqoto waxaa waxyaala kaalmi cookies waxa si jecel yahay nacna ay cuntada cookie dough waa buur waa pretzel ka jamu fiira waa buur waxaa jira equal stimulator guriga ma intayna qarxin ay xanaagin relax على جدا مركا ايكوال ستيميوليتد فضها ما الغرفه ايوه الطول هذا برضه ايه واحد السنسور واللايتنج هذول كاملين السنسور ستيمولاي ليفل ثيرابي ايوه تعالوا مكلال اما ايه وبدا ما اسمه ريلاكس يفضل صار كو ادب وحيبه اسمه دبده هذا كهذا iyo marka dayacada raacaysa horta dibadda intaan geyn waa inaad maalin kasta agteeda tagto ku soo wadajiso hatta iskuulka bilaabo hatta ilmaha caadi fasiya marka iskuulka bilaabaya horta baabuur baa la qadaa iskuulka exam ku soo wareejiya ama lug kuwa iskuulka kana waya isoo socota aadisa kan oo tisma qano waa lamid wax inaan ku noqon faja hadaa ay supermarketka horta marka hore tartiib waa in uu intiina dadka kale kula yaabay markuu meel doonado supermarket jiro horta badanaa gaalada ingiriiska calaamad wataan slips ku dhigan tahay autism hada qorti hada label autistic child calaamad autism waa shaarka ugu dhigay saa daraadeed dadka waxay ku dhaqanayaan more sympathetic eebtan way yaraanaysaa marka waxa haday timaado geeska ku jirto inaga geeska ayaa uga baxaysa oo fadhiisanaysa geeska dadka ka soo xiriiraysa halkaas baad la hadlaysa oo dejinaysa ma inaad la carabto baad isku dhaxdo ambaad eeb ka shaqayso alright need a therapy iyo copy hadhow ka hadlaya next
Next slide, please. Thank you very much. dagaalka daawo u baahan yahay 80% oo ilmaha qaba autism daaway qaataan saddexda kor jirto ayaa ugu wanaagsan dhulkana taalo alipulso respirator balance dooska waa kaas da'duna waa taa waxaana kaliya qori karo dhakhtarka specialistka oo psychiatrist kaliya ayaa qori karo marka GP-ga lala dagaalamo mana qori karo mana istaaji karo mana yaray karo mana badin karo مثل فيليدي وأكو قبل ADDH داون أو حركة داون المها قبل أوتيزم ولا بعد ذلك ديبرشن كده إذا داون ديبرشن كان سيا لا أو بالبيع SSRI هدو قبل إبليبسي أو لصقت أوتيزم وحاسيا من أنتي إبليبتكس في هذا بريكن كا كو أدل كا وحاسيا من التون لكن نترك كمان دول كانوا نصيو عرفتنا كما أرجع لك مركب ميلاتونين وهرمون يرون القلب حين عمله أو وقت يعني ما جت لاج بالوتياشن كبحايو سان فرانسيسكو ألا طوكيو إيست ويست وحبدك شفتي وش 12 hours 3 minutes 19 minutes day أيام سيا ميلاتونين سيدي فيس شيفت ما تساكت تسلك أنا ربنا نورمال لكن autism no way especially Islamists لكن داود بربر كلمها لاينين autism هو محور لون marka daawad saddex la koro ayaa lagu dejiyaa side effect waxay tahay waa taxaddar ku shay next please daawadan inta ku qoran oo aad looga hadlo dhulka ingiriiska lama ogolo smart license laakiin carabta iyo adduunka kala ku baaqay mid waa hyperbaric oxygen therapy oxytherapy oo arkaysa triple X waa marka waa ilmo yar oo la gelinayo oxygen compartment ee lagu shidayo normal oxygen wax lala yaabo lacagna laga qaado oxygen caadiga ka baabanta uu shub ayay maaragtay compartment camal gelinayo oxygen waa toxic waa gas toxic neerbahay gubtaa suusan ilmaha indhahay ka ridaa retinaha oo ah xasaasi way gubtaa marka oxygen therapy waxaa lagu tagay dadka gangrena qaba ama dadka ku dhacay lagu qarxay baarka bombooyinka oo dhiigga ka qubanaya oo nooleeyo maskaxda ee oxygen si bes no waxaa jira secretin ilmihii qabay maaragtay soo saari kari waaya xaloosha cuntada jijibo waaye waxaa la secretin hadda sii baa layiri oo ah hormone maxaa la secretinka waxaa sameeya pancreaska soo saaro marka ilmaha autism qabo pancreaska leeyahay dadka la siiyo secretin iyadana waa la diiday maxaa waxaa qaansiir baa laga sameeyaa nasiibaro carabta markay timid in la yidhaha qaansiir baa laga sameeyaa hirkooda ka wada boodhay qorad leeyahay inta lama ogolo testosterone iyo dimethylglycine iyo immunoglobulin iyo waa no light stimulator hadda waxaa la yidhaha sensory question mark auditing integration therapy oo weli active ah okay question mark maxaa yidhi waxaa timid sensory rooms baa lagu bedelay sensory integration therapy hadda aan ii fasiro waxa weye ilmaha waxay taabanayaan autism waxay taabanayaan iyo waxay arkayaan iyo waxay maqlayaan iskuma xiri karaan iyagana marka maskaxda gafuurkeeda hore inta madaxa ayaa center of control of analysis waxaa lixda senso aan leenahay xaggay ku aruuraan markaasay macno leeyihiin marka codka markuu maqlayo iyo wuxuu taabanayo iyo wuxuu arkaya isuma gey karo so each one is at the same time I'll give you an example hooyooyinka experiment hooyo ilmaheeda kasoo qaadaysa iskuulka ayaa wiilka ag maray hooyo ma yaqaan markay tiri axmedow uu yiro taa waa hooyada marka waxaad arkaysaa inay indhihiisa madanahay laakiin codka hooyo registers laakiin saddexda iskuma xiri karin inuu arkay hooyo tahay iyo inuu aado uu sameeyo actionka iskuma xiri karin
laakiin marka magaciisa u yeerto wuxuu intaa hooyada just tell you marka sensor integration saas ayaa ilmaha lagu hagaajiyaa laboratory baa la geliyaa laakiin hadda sensor room baa tuha dhulka next waa kuraan waa dejinaya marka next please right therapy ka jiro tan ugu wanaagsan hadda socoto aad iyo aad u socdo waa ABA applied behavior analysis xanuunka dhibka haysto meesha keeni waa la sugeynaya maxaa ka horeeya maxaa keena muxuu yahay behavior iyo muraadka laga leeyahay behavior saddex ayaa la sugeynaya markaas wax laga qabanaya hadday ahayd bilowda guriga ka bilowday waa in la hagaajiyo hadduu yahay inuu iskuulka ka bilowday waa in la hagaajiyo iyo wuxa uu doonaya positively hadii la hagaajiyo base wuxuu rabaa attention bas oo waa negative hadda waan ka hadlaynaa kaas waxaa function analysis cognitive behavior therapy CBT waa taqaanaan dadka senior adultka oo verbal ah waa saacidaysaa sensor integration hore uga hadlay daily life therapy jabaanka ku isticmaala maalinta keliya waxa u baahan tahay uu sameeyo voltage based waxaa waaye guriga lagu daawo oo lagu tago marka tan koro oo aan guduud ka dhiga highlighted that's the most applicable modern how going story only problem is that it's one to one very expensive akad waxay ku fiican tahay hooyaa la bari karaa she can training she applies at home and at school marka wuxuu dhan baa isbedelaa software waxay qof soo ijaaratay abiyada ku sameynayso waa 500 baad an hour like the 4 hours that's what $2,000 it's interesting next please next yeah right ABA analysis waxaa loo wareejiyey practical functional behavior analysis أول واحد محور حتى واحد لطالع behavior كوفي define behavior dash ولكن كأب بسرعة لكن it's quite applicable but the behavior observable is measurable can ask what when where why why behavior واقع يا بوس وحدود when what good وحاجة كلها قولوا بس لحظة صدمات أو why مراتو كلها محل and they see observe routine frequency once a day twice a day once a week on the night on the morning frequency كبعد chart سمعنا حنا ABA analysis chart كاس وحاس كلا أحلى chart كاس أي بيقولوا جماعة سكولك كوبيديسن هويا هست marka intuu u dhaxayso ayaa la baaraya marka waxa uu define ask then hypothesize when where and why and then make intervention I give you a quick example Ahmed guru ka soo baxay hooyis gaaray ku soo qaaday iskuulku yimid classku galay oo computer classki break ka bacdi oo la keenay cafeteria ayuu arkay mid la yiraahdo Umar markaas uu ka maray ku naqan maayo classka maxaa Umar joogo classka maxaa la weydiiyay marka function ka horta waa Umar marka waxa dhiman positive or negative marka waxa leeyahay hadaan Umar ka reebo classka ma tegaysa waa positive doora yes doora no waa negative just to give you an example okay next slide quite simple actually this is good like what you about right this is a new concept سفي أنا يقصر حاجات جميلة تذكر autism دلائل أمقبة يحبون عنو بإني بالدلال يكاد كان عادي أيوة كان هاي يحبون سا ممكن إنه أيضا عمله مركز حناجس مركز حكمة ورمي لما نسوي بالدليل
waxa la autism way of life hadda aragtay slogan u qoran dirgale hashi waxa ku dhigan educate empower and embrace look at that I don't know if you do it, but that's how it comes marka waxa la niida waxa la shirta meesha gurigeeda ku noosha marka waxa weeye marka organization structure أحمد أحمد ما قبصنا أحمد تقول لي سؤال أصلي أدور هاي قبول يرى أنا سترهم كويسين ما بيعيش الصوت كله لكن لو يرى أحمد موجود سيد السحر ما قاعد يحب inform transition and change بس إن change هو إن استبدل ضعف كهرباء سي use sensory rules المها واحد كهلا هذا المتقارب ما نبغى أسبكر سريرته وقت الساحة واحد مش شقي والواحد تكون ساعة انتظر حامجة وحوي sensory room وحوي comfortable room وحوجي على سلو قرنها flooring exercise باجت وحدة قرب كل ما هو عيال أبا كلر ومن نوع أو كبد عيال وكل جسم وحكوا شيء دينيس أحمد السجع أو الصلاة وحو كهلا halkaasaa hab raacaysa sensorigaas baa guriga geynaysa lightka kan aad guriga kalarkiisa waa isha carpetka waa inuu hal kalar kuwa murabacaad kale wuu istaagaya marka meel cas meel guduuda ka dhaqaaqaya haddii hal kalar tahay waa smooth temperature room waa isha remove disturbing stimuli color look القيلات والإحساس الإحساس cover أنا قرأك after a while وقتها وتم بسوي مع صراع COPS صحيح communication organization positive support emotional this was 14 years onward وهذا empower وعلى ما 14 كده هذا verbal or not verbal وإن أيجا السيو organizational program أيجا مسؤول كيه supportive epigenesis على رقم هو يفعل أهو البروجرام على السيا والاسم واستعمالها app كله بقى جزء communication app organization daily schedule فقرتها positive support هذا كسر العقد وواحد جاء الأساس يقدر يوارد emotional regulation وحبر يسامر كل ما meltdown de-escalation وحلا self management وحبر يسامر بقى الكمبيوتر كبر يعقد مركو حناق ماشي آلي relax كله أظن تراك يلون هو ماشي على قصة أوكي هي sensory social والمنطقة بحد وأنا يجب بالله قبل أتساعد لكن قاعد تكلم والله وجه الأحسن لحد 14 15 years وعبدالله ستة لعب عربي لكن برنامج كاس وحاول يكون حوالي أفكار 14 onward حتى أدرك يوصل next please ناس حالين التربية الكوكس وكان هذا عصر ده next بس إنه لوحي كوا أب كراي ما هذا كذا this up كل symbolic of the مركب تابت next one مركب تابت creates voice next please it جعلها تسعد next slide Yeah. right so reflex هو computerized authenticity the symbol turns into words with clear speech مركب تابت simple كاس مركب تابت clear speech what do you want only مركب أنا قبل مرة إنه طلع we batteries this one saves it and then communication computer هذا هو age appropriate education appropriate ability appropriate مركب إن loss سميه معناتي downloading ولا حتى عدك هاي هدي الدنيا كسر فيها حين هاي كل هذا الشيء المقالة مركب you know they have to construct for you especially مركب وحاجرهم website هذا the assessment. Just I want to give you an example of some other content. Like next please.
Next, please. Yeah. Tapas prolog, parliament. Non-verbal children. Touch the symbol to generate voice. Symbol ko tabanaya, say the hello. Next, please. Next. Next. Yes. Right. Corpus Wakan program. Hello, Bobby program. Barka Saada, Marco Kai, Marco breakfast family, Marco Bascara, Marco school continue, Saadi, or Kudi. This program was self-management program. But that guru goes okay. But waxaa loogu talagalay inay ayas maamulaan haddaan la barin bay tii empowered iyo embracekana imaanayso ku qoran diet autism ma imaanayso weli annaga waxaan marohaynaa educate dhigmayas empowerment iyo embracekana iska imaan alright next please next slide waa ka baxday Yeah. I'll come back now. okay this is finally spiritual treatment so spirit iyo daawada iyo daktarka iyo sheeka iyo wadaadka isma diidaan isla wada socdaan marka spiritual hadda dhulka ingiriiska joogna waa la ogol yahay inaad adigu damba isbitaal joogta waxaa rabto inaad wadaad u yeeran karto waa la ogol yahay waa la sukaya provided inay iska hortay marka daa aragtaada oo arkaysa meeshaa tahay herbal medicine reiki waa Japanese is based on energy inside energy reiki Japanese language for power in God pranic waa Hindi ku saabsan tahay environment inta wuxuu leeyahay khayrka iyo energyga dhan banaankeeda saaran tahay wax laga tegmada erka dhulka hawada geedaha cuntada ku leeyahay juju waa West Africa Nigeria Ghana Togo ilaahay inama tuso waxa weeye oday meel isku xiray oo mugdiya oo juju ina laf isku dhufto bahal maqanayo qofta loo gelaya cabsinayo markaas la maasoo ku leeyahay juju qaal waaye laakiin wax loo dhawaa kara maaha faith healing taas waa Kenya annaga waa holy ash iyo holy water iyo Qur'aan iyo music therapy all of them are viable it can help if used properly. Next, please. Next. Next slide. Next slide. Yeah. You got it. Right. Hadda hooyooyinka ku dhaqaaqaya xoogaa yar isugu hooyooyinka muddadii dambo waxaa loo jeesta hooyo dhibkayso beriyo hore waa laga leexday waa la iska tiray dhibka hooyo ay marayso marka hadda meel laga joogo ilaa 8 sano anuu aan kamid ahay warqad qoray survivable waxaa loo soo jeesta dhibka hooyada haysta in la saacido hooyada iyo wiilka waa interlink hadday hooyo bogto cunuga ma ladnaanaya hadduu cunuga bogto hooyo ma ladnaanayso dhibka hooyo ku jiro cunuga waa mirror wuu arkaya hooyo inay jirto hooyo hadday ooyso cunuga waa ooyaa cunuga hooyo waa ooyeysa marka behavior waa mother influences the child and vice versa marka hooyo musaacida u baahanta marka horta aan ka bilaabo waxaan ka bilaabaa reaction to diagnosis marka next slide please Next slide. right marka maxaa dhaca markay hooyo ogaato canuga inuu qabo autism marka hore fajac baa ku dhacay wax la yidhaahdo reaction to autism isku naxaysa waxaa ku soo xiga wax la yidhaahdo guilty feeling marka ayada isu qaadaysa dembi oo macnada laga socdaa anaa isyaal anaan dadaalo anaan ka hortago waxaa kala dhibka keenaya challenging behavior reaction to society iyo feeling of isolation laakiin dadka ilmaha laga qarinaya maxay weliba Soomaaliya iyo concern over future caregiving mustaqbalka sida loo noqon doono including lacag next please.
next slide. Right. Yeah, you got it. marka hore waa shock and dismay ilaahay ka tahay ma jira wax tan kalena waa denial anugayga autism ma qabo ilaahay ma qabo waa been ka ayada waa ku xigta waa anger xanaag ayuu u jeedaa dhakhtarka ba iyada tan afraad waa bargaining wixii waa dhaceen ilaahay amarkiisu weeyay sabaxeen kabacdi waxaa dhacaya depression laakiin murug aad u foolxun and then they come up acceptance. These stages, the quicker you pass, the better. And I have to have a Arab Somali and will go in and look about autism after 3-4 years. On Bilabimba, we have Gandhi, Allah, stage 1, stage 2. Illa after 10 years, Iran, حاجة واحدة ما تبغى تدخل هذا وحوي generally speaking hadday luqada toosin by the year of 5 years dadka oo sii badanaya xal furaha autism waa luqada the earlier you get the language the better outcome. Next slide. markuu xanuunka autism qabo your life has changed for life. Your life has changed forever. Okay? Market, you have to push autism on lifelong. 80% of autism are before their death. Market parental expectation, مراد كأنه بالإيه هو هذا الهد وأنا صوت الإنسان. وأنا أتكفي كرتاء about siblings وإذا شلون أشياء الله شو. ويكقريا حربت ويكقريا أخذ ما عنده شيء. سواء ويكقريا وحوم قبولك والله حوم هو أوجه له حقه ولكن هو أوجه ويركيا وقع في المركة هربا إلا فبست برلمانيا ولا هو حلو بعد أنا سوشيال قطر راح أقول رجول كوبيس لوكالتي أنا عرفت عن أبو برتي لوكالتي عرفت ولما هو الخليج كان حديث مال وبدأ العاكة كده حين يسوق سنين أهل كده يعني وحنا لوكالتي قلت مركوا الله يعطي أقوى تعليم بالله أكيد واحد تاجرنا هنا كما هذا إن أوتسمي كان تاجر لكن واحد هو إنه هو بدن وكلمة ما إنه أوتسمي قبل إلى الآخر فما تجيك أسبدلها سوشيال أفكار أسبدلها مركا أنا جوا أسبدلها relation وبقول إنه بقول مركا أنا بقول أوتسمي وهذا لا فما بقول ما بقول next. You should know that. That's what I mean. Next. Right. Marka hooyo adig hooyo waxaad doonayaa intaan hooyo inaad sidaa noqoto marka adaas garanayo waxaa jir hooyo martyr ah dedicate all her efforts endless hooyo suqrigisa wiilkeeda kuwaasa u badan baan arkay oo dhahaysa anigu waxaa u sameynaya xanugeedu wax kasta hooyo advocate ah breaks all barriers dagaal meel kasta iliga furaysa sida xanugeedu loo saaray hooyo oo lioness ah warrior u dagaalamaysa defend the child hooyo center ah embrace God's gift oo sabartay ilaah baa keenay ilaah baa the builder aniga hooyadana ila fiican leaves no stone unturned oo hooyada the victim hooyada waa ilay waa liidataa regrets having such a child. Can't claim anyone. Terror or negative. The researcher, frenetic, or look to find any elusive answer. جواب عن جرم وهذا. أتذكر هذا السمس أدوم هذا السمس. كم ما كان لنا واحد ده لكن هو يوم كان صوص. Next slide please. kuwa dhibka badan anaga iyo cabdi aan aad u aragnay hooyoon badan ay sheegeen inay yihiin wax xumo laakiin waa in la yareeyaa
يعني undesirable كر يعني لو مبهم really الإنسان قبل هو لكن ما وإن أقولان سيفضل helicopter parent أربع قبل أي أقول وهو 24 hours عنق كرت هذا مدارس ويردوا ما يردوا حاجة يردها كبح صوغ سيحة بس يعني كنا تعرف كم عنق نفس وكان عايش ودي إنه explorations إنه كان بوكي they have to explore قالت الجلاس وبرنا هذا قالت هذا الدب فراسان سيدو برنيسة دب كهذا وكوبية حتى بدأ حبرتي سلامتي وهوري هليكوبتر كوري كوكان سلامتا سبحان الله وهو ونكسب تاي لكن give a chance أنا بالريلاكسيشن إنه قلبه learning exploration learning competitive parenting وحاول سلامتي أو أهل السوير كي واحد اسمه can be mathematically brilliant, it can be design brilliant, it can be language brilliant, anything you want brilliant. لكن هذا كان تنسى deficit كيس. marka ku qasbaysa inuu sameeyo kulina uu leeyahay macluumaadka wadada hand of parents waxa waaye hooyo iyada ku dhaw musaacado u baahan faraha ama sameey karo hal ilaahay perfectionism waa tiger parent waa hooyo لواحد وقتي insists in يمكن automatically يوقف perfect كلها إنه X إنه الضبط نسخة في الإنسان وحيد كان بتريسا إنه curriculum بالنص السلام عليكم. هي فرناتيك بارنت أو digital mom. Are you okay? No. Digital mom أو تنظر Let's see next slide, maybe next slide. It was your BE day today. How was it? It was good. Next slide, Abdi. Helicopter parent hovers over the children. They lead it to help. Intervene is good, very bad. Next, please. How was the day? Good. معك سوق ليس. Next slide, Abdi. أكبر حياة مرة. This is the one. Next, please. أكبر helicopter. Next slide. Yeah, you got it. كل parent I explained. وإحنا العالم بين واحد توصل لكم. Next class, please. Next, please. Yeah, you got it. Permissive parent وحاول هو يتري عن قيد وحمص ما يكره مركب وحبا مساعدة مباهنة سيسا لوسي باي وبرميسيف وحكس هو بلاتي hand of parent وحاول وحوص ميها السمين guidance money outdoor social activity money وكسي جسد face to face money فكل اللي توحى permissive parent هي hand of parent مسؤولية من اسكولوجي وحبس ليش أسكولوجي فالبلاص أنا نقطع المرض هليكوبتر digital mom أنا نقطع المرض next please Yeah. next فريق أنا طلع إبتي حوجا تلوى هو يوم متعلمة عن قروا first child marka she went to habeenkii oo dhan raadarka baa u furay digital adduunka oo dhan soo marsanaysa marka maxaa cusub xagga maxaa cusub markay soo abuurso badanaa waxay wataa labo laptop ipad iyo laba telefon ay wataa marka tartanka u imaanayso markaasay ku leedahay doctora maxaa cusub autism markaas adoo jawaab soo leedahay walaa weli wax ma haya waa kaladeyn xalaal arkay waxaa leedahay digital mother multiple therapies عنده صبح كسويسة قلبت اسم الجنسة كبعد دانس الجنسة كبعد اسكت ما بسيني سوحت أكونس وحنا كنت ما أعرف هلا
qof frenetic ah gabadha kale bishii sorry waqti wax kasta aan aqaan dhakhtarka faalka qaatweydii wejiga uga dhigay waxaan tegay tiri Mareykan waxaan tegay Germany waxaan tegay xag kaasoo dhan isu laakiin xagga tagtay lacagta dhan laga guray waxaa la meesha ka daba u noqday marka hawlahaas digitalka waa very I don't want you to do this abadan helicopter ka waa qaatay next please Yeah. maxay markasta ahalka ula dagaalama dhakhtarka iyo authority waxaa leedahay ana cawgay waa unique waxay doonaysaa special program waxay ka qabtaa different philosophy in autism waa brain driven program ay doonaysaa she has different goals for children hopes iyo reality wayna kala garanay kawataan dhehayna competitive and embrace and promote idea about treatment that causes autism. Dawa iyada maskaxda ugu jirto. Aan ku arkay Soomaalida way jirtaa cunto iyo diet oo qofna kala hadlay isku aroostay cuntada siinaysa cuntada u diidaysa barnaamij geenaysa barnaamij kala eeda samaynaysa dhibka weyn oo dadka uu hortagay ildaha laga xiranayo waxaa ka mid ah authorities u dagaalamaan sidka muxuu yahay dhakhaatiirta inta jooga ama iskuulada teacherka xaq u leeyahay marka inaad xaq gudubto ildaha laga xiranayo from line A to Z marka waxaan kala talinayaa in dhowrka marka hore cilmiga raacdo marka ildaha dhan kuu furmaan sidii gabar hadeeda nala hadlaysa oo imika wax kasta loo siiyo up to aan sheegayna up to other next please waxaa ka baxaya mar dhow one more slide please That's it. maxaa samaynaysaa what is diagnostic with autism don't worry about information meesha ku badbooda waqtiga isaga dhibina maxaa keenay maxay tahay hooyada kale hala hadlin maxaa yahay canugooda waa nooc kale waxay ku leedahay dad autism canugeyda ma qabo shaqa ku maqo waa spectrum wuxuu qabaa hal calaamo kan kalena laba calaamood baa isma leh ha qaadinay daawo adugu aadan ku qabsanin waxaan ka hadlaynaa vitaminka iyo balaayada waxay qasayaan don't get obsessed with autism isla garan inaa adag tahay you know best you don't overload شات الشيء or digital month. Don't overload your child. Next, last slide, I think, please. Tips for mothers. To follow this. You know you hope, but you don't lose hope. Stay positive. schedule aad ula soco ee canugaada isku waqti aan sheegayna put play on the schedule itself marka israaca marka wax soo gedaysa wixii rabin tus meesha tegaysa get support and look into respite marka respite maxay tahay dhulka aan joogno haddii canugaada autism qabo oo u haysta documentation programna uu leeyahay sanadkii 2 asbuuc aan leedahay inuu siiyo respite si lagu siiyo respite meesha aragtaa ilmaha center baa la geenaya ama summer camps amba ahalkaad kala u dhibinaysaa lacag ay ku hayaan adigana fasaxdos ay xaq u leedahay marka xaqaas waxaa ka dambanaysaa local authority NHS maaha waa local authority social worker joogo ayaa leedahay I need respite ani anigu waa ku gubtay ilma badanna waa leeh waa noogay anaaba depressing marka xaq baa leedahay respite inuu siiyo raadkaas waxay ku xiran tahay meesha deginta iyo xoolaha ay dadku leedahay beledka isolaadka ismale waa kuwa waxaa jira lacag badan waa lacag yar isolaadka waa inaad ogaataan waa category A category B category C waxaa jira hospital foundation university hospital partnership hospital so
الصلاة كل شيء GP ده كله إيمان ولا بكتها العقد كحرم فاسمه next probably spy by it thank you marka aniga waan ka baxay sorry